dadka Soomaali afka Soomaaliga ku hadla ay leeyihiin waxa laga aasaasay 2005 16 bishii sagaalaad caasimadda waddanka Norway Oslo halkaas ayna xaruntiisa headquarter ku taala Kafaalo waxa member ka 2500 oo qof oo dadka Soomaaliga ku hadla Kafaalo bilowgii waxay ka shaqeyn jirtay taakulaynta agoomaha oo dad ilaa 500 oo qoys oo agoomaa ayay u samaysay small business oo Boorama qayb ka ahayd oo ilaa 12 qoys kaga jireen oo reer Boorama Kafaalo waxay ka shaqeysaa laba meelood imiga qaybta akaademiyadda iyo ay base-keega ugu weyn iskuulka role model ku yaalo Kismaayo iyo qaybta maxay wacyigelinta oo journalka caawa soo bandhigayo oo garwadeen ka yahay journalkan ama Kafaalo magazine markii u horeysay ee la keeno Soomaali Boorama la keenay 260 koobiyo kamida ayaa halkan lagu qaybiyay caawana waxay noqonaysaa habeenkii u horeysay ee dhul Soomaali degto Kafaalo magazine lagu daafuro waxa iyadana mar labaad si wanaaga in loo doorto Boorama inay noqoto meesha mar labaad lagu soo bandhigo Kafaalo magazine iyadoo doorashadaasi ay wax badan ka dambeysay taasi waa taa journalkan Kafaalo magazine waa markii shanaad soo baxo markii koowaad halkan lagu qaybiyay mar afraadkii waa la keenay caawana mar shanaadkii baa la daafurayaa waxa weeye Kafaalo structure ahaan waa urur ay Soomaali leedahay baynu nidhi boardkiisu waa 7 xubnood golihiisa fulintu waa 5 xubnood dhammaantood waa dad aqoon-yahan oo dadka Soomaaliya ku hadla ma aha urur ama reer ama gobol ama ay ku midaysan tahay waxa shardi ah ururka inuu dadka Soomaaliga ku hadla ka dhaxeeyo luqadda Soomaaliga shaqada weyn oo qabtay waxa weeye inuu kobciyo akhriska iyo qoraalka iyo cilmi baarista ummadda Soomaaliyeed taasi waa marka caawali noo sida oo dhageysanayna waxa jira oo Boorama Kafaalo u timaado runtii waana aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan markii shanaad ay Kafaalo ku soo noqoto magaalada Boorama وانا مقالة أنا أقول شغلة هاي اختاروا عدو سيدة ما ضارتها كيسي شنات مقالة بورمة مواضيع السنة إن شاء الله عند أحمر دونه وأني صاحب كي اختار قراسي عن سلة دادين دونه وحاسلوتي سؤال قال مهم معه والله يا ضد بين سويدين ومقالة كلية عن أمد صومالي دكتور أنا تاسو شايف صورنا مغرمي أنا وابن عبرة كتكني مقالة بورمة يمدي دونا جوابته sababta keenaysa inaan ku soo noqono magaalada Boorama dhixi karta in marka dambena soo degnaba marka wax kasta ka shaqada magazine runtii maadaama uu wargeys yahay halhayskiisa halkuligiisu waa u celinta dadkeena fahamkooda saxda ah dabcan fahamkeenu uu saxsana laakiin mufakarnimada iyo fakarka ay kulli ku qodontaa oo saaxiibka muxtaar ay iga dambeyn doona لكن مرة والله waxay ka kooban tahay 5 qaybood ayaan in badan dhinacyo badan buu mar walba ka taabanaa qaybaha ugu waaweyn oo ugu codw ah arrimaha bulshada sidoo kale aqoonta iyo caafimaadka sidoo kale taariikhda iyo diinta oo sidoo saaxiibkay Sandar uu sheegayba san walba culimada Soomaaliyeed shaqo kamid ah oo inta badan laga yaabo in muxaadaro ahaan ku maqasheen in taariikhdiisa iyo meesh ku koray ku soo bandhigo iyo darsi marka uu leeyahay سنة كان نبضي حاكوشرا شيخ آد وقالع أو إن بدل فكر لمدي درسي جاها ولفتي وكهر لسقي شان مسترفع يا أنت سنة كلوي حتى وصلوا كونفرنسية وقاعد عند قريب هنا عكلا وبرشة هي تربية عروضة وأنتي أساس كعروضة وقت كان سوكرية مركز قيام بدل بروتي كفالة مجازين وطاوانا يا isagaana jecel mar kasta keenaysa in mawaadiic kala duwan aanu mar walba dhinac ka taaban sanadkan si gaar ah ayaa runtii dib ugu celinay luuqadeena Soomaaliyeed iyo dadkeena Soomaaliyeedba halka ay ka soo jeedaan waxa weeye kulli markaan Boorama ku daafurno dalka qaybihiisa kale ama meelaha magaalooyinka waaweyn oo Soomaaliyeed degto waanu gaari doonaa hadii la yiraahdo waa runtii sanadkii ku ballaadnaa aan dhinac taraf meelaha Soomaaliyeed ay degto aanu aniga saaxiibada aan runtii kala gaari doono kulli waxaan rajaynaynaa reer Boorama inaanu berita xitaa la qaadano qaybta koorsooyinka
وكفالة مجازين مادام إن عبرة طبعا صوب أنا أرضي الجامعة إذا ما قيد صنع صبحي دي لا يدارو أنا قيد كورسوي كي مسك كوبين تلفت كذا وأنا هاي مركز قيدور هو ذكريا كفالة مجازين دافو كذا لكن هو ما يدنا سدوا كل ضد قيد قادم كران كورسوي كأنه إن شاء الله جامعة بور عمود كوب عندنا صبحي دي لا يدارو تمي كلام كمان أركيب كفالة مجازين كسوق عندنا بالمالي شنطة سنة وعقد كتير marka ila wadaag insha Allah kana wakii horeeyay aan ku daafurnay 2012 magaalada Oslo oo ciidamadeena Dr. Maxamed Ali Saalax iyo Sheekh Mustafa ay ka soo qayb galeen siyaasiyiinteeda iyo aqoonyahankeega kana markii 2002 aanami magaalada Boorame oo seminar ka macallimiinta laftiga kan ugu qabanay kafaala magasiin aan ku soo bandhignay shirkani waa shir jaamacaadka ummadda Soomaaliyeed kala duwan joogtay Kuwait ay ku qabatay kafaala ka qayb gashay kana wada Afriki kana wakii hadda u dambeeyay kafaala magasiin conference-keedii aan ku qabanay Oslo 6 bisha oo ka soo qayb galay Professor Abdullah Mansour oo runtii ka hadlaya mowduucan luqadeena iyo ummadda Soomaaliyeed ee ka soo jeedo laga yaabaa in badan maqasheen Professor degan dalka Talyaaniga baaristana ka ah sidoo kale dhinaca fikirka Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil دار قرآنسي يعني قاعدين على فكر كفالة فكر كذا إسلام جابيهن لي صورة كمذا رجع يلبى تعرف كيف قصنا قبل موضوع ولا هو حكمنا عن فكر جودي كسيو كفالة ضغط كل لبي توانكي وعن حاجة صارني ومدة الصومالية يوروب تكلمت كشيء مالها يكل جوجان صدق بقول لكم تكون بيا حيان مركال كاسار كسر مالها يكل دقيقين sidoo kale dhibaatooyinka haysta oo inta badan laga natiijada ka maqashaan sida carruur qaadista meesha waxbarashada ka joogaan shaqada meesha ay ka joogaan dalalka ay galeen dhibaatooyinka iyo horumarka inta laga sameeyay ma ku qaadan dhignay kafaala magasiin 2013 isagana dhinaca kalaan ayaan u baarnay oo ah barbaarinta wanaagsan oo meelo badan ku arki doontaan maadaama ubaxeenu yahay runtii waxa ugu muhiimsan ee wax walba laga bedelaa baa aqoonyahankan ku qaadan dhigayaan horumarka waxbarashada qayb ka mid ay tahay waxaa kaloo maqaaladiisa 2013 ka mid ahaa cadhada aad loogu fara badan oo maxay ahayd laftiga eeganay saamaynta ay leedahay sida loo xakameyn karo iyadana qayb ka mid ahaa magasiinkii maadaama ganacsato aan badan ummadeena Soomaaliyeed meelaha kala duwan aan joognaba waxaa isagana qayb muhiim ka ahaa qaybta waaxda dhaqaalaha oo iyadana aan ku qaadan dhigay maqaalo ka mid ah كان والله كل يصدق توانكي عوانكي سيام إن ضدك معمولة حاجة فكر كا سهل كمختار بوندين دونا لكن فكر كونا غورغوريستا قربتشوك تيا سامين تبشر كل هذا سيدك بدي يسلو غورغورو أي قربتشوك تنادار كل غورغورا ما كسامين تايلا هذا هاي سيادة إنه كأني كابتن فرمل كأني دودعة مقالة يسقنا كم ده waxaa ka mid ah yagleel yoolkaaga oo ardayda jaamacaadka ama ardayda baranaysa talaabooyinka ay qaadayaan iyo jarjarada ah maqaalka hadlaya isaguna waxaa iyadana ka mid ahay nidaamka bangiyada qaabka ay u shaqeeyaan bangiyada caalamiga kafaala 2015 oo halka laftiisa qayb badan soo gaaray isaguna qaybihiisa waxa koobnaa oo waarka sanad ka dambeeya ka bedelnaa sanadadii hore sawirada dadka qorayaasha kuma jirin laakiin qof kasta qoraa halkan ayuu soo galayaa haday gabadh tahay haddii wiil yahay waxa weeyaan waxbarashadiisa iyo dadku say uga bartaan dadka kale marka reebor waxaan rajaynayaa rag iyo gabdhaba inay ka qayb qaataan sanadkan soo socda la yiraahdo maqaaladu waxyaalaha joogtada ka mid ah maadaama tarbiyada tahay mar walba maqaalo ka mid ah ayaa tarbiyada aba balantiis oo ay qortay hibaab mubaal oo hargeysa degan hay-aadka injooyadu madaqaanaya abuuraan bisoo bilcagsigeeda oo saaxiibka muxtaa qoransay oo qoranuntii injooyo aad bay ugu badan yihiin meel kastoo la jooga ama caalami khaasatan kuwa caalamiga marka inaan is weydiino horta madaqaale abuuraan mise burbur bay horseed u yihiin marka iyadana halkaasaan ku qaadan dhiganay علماءنا الصوماليين وهذا كوي كوري وحاكسوا بندقنا عمل دكتور علي محمد صالح هذا وشيخ محمد إدريس يتاريخ ليسي يدرسي حول بدن وصيه تمركو هذا المعنى يكش عليه سوى كل السياسيين ترى مدام السياسيين ترى إن الله فديان
maxaan ka baran karnaa khibrad ahaan dalka Turkiya iyo hoggaanka wanaagsan madaxweynaha Erdogan oo runtii buugaag fara badan iyo maqaalo fara badan laga qoray iyadana ku soo qaadan dhignay kuwaas kuwii hore waxaan maqaal uga soo qaadanayay waxaan rabaa inaan xoogga saaro oo ku taagtaagsado 2016 oo ciwaankiisu waa Soomaalida iyo luqadooda ka soo jeedaan tarbiyadii aan weli daba socona garaacista ilmaha guriga iyo waxbarashada saamaynta ay leedahay kulley macallimiintu aqoon badan bay noogu leeyihiin marka arrintan maadaama muhiim tahay dal iyo gudaba annaga dabadeena carruurta waa lagu qaataa dilka halkana carruurta dhingadun baa lala taagan yahay marka saamaynta psychology ahaan iyo maskaxiyan carruurta ay mustaqbalka dambe ku reebayso oo iyadana aan sii wadnay wax walba dhexdhexaysiga wax walba diinteeda maadaama mutawassit ay tahay dhexdhexaysiga barbaarinta ayaa maqaalkan isagana ku qaadan dhiganaa carruurta runtii calooshooda baa ma ka shaqeyna waxay cuni lahaayeen waxay xidhan lahaayeen laakiin maskaxda iyo maanka inaan kobcino baa asaasa maqaalka laftigiisana lagu qaadan dhigaya tarbiyad baa weli sii socotee agabyada lumay ee awaabinta ubadka ayaa maqaalkana uu ka hadlaya sidoo kale waa qayb ka mid ah tarbiyada ay Faadumo iyo Axmed Nasiib bal fasalada ardaydu waxay kala kulmaan ardaydu waxa weeyaan arday liitay arday kala waa jira laakiin dhibaatooyinka waa shaqo ka sheekeynaysa ardayda iyo macallimiinta waxay kala kulmaan inta badan xukunkan ku degdegnaa waxaa laga yaabaa qofka inuu yidhaahdo markuu shay arko inuu xukun markiiba saaro laakiin aan cilada la raadin marka cilada aan raadinno inta aanan xukun la ridin buu maqaalkan ka hadlaya kana runtii oo maqaal aad u dheer oo Professor Cabdalla Mansuur ku qaadan dhigayo inta lahjadooda leenahay intii hadda la qoray intay tahay iyo meesha intaba ka soo jeedno oo professorku noo qaadan dhigayo maqaalkani isaguna wuxuu ka hadlay dibindaabiyada dabadda iyo dayacnaanta gudaha teebaa sababtu ay tahay يعني إن بدن حركة نادى مقال القرآن وسيدي أنا متفق أنت بالفيديو يومك ذلك مدك لا حكمته الحكى لجمع ليجيا قف كبير يصاب وصمين أيه ما أعرفه مركز ذلك إن هرمرك إن دقالة لأنتي هرمرك استوى محامة دبدأ يا حب ويا هاي وبلاطة وحب دبدأ مسه وحوي مال كلوية أبان إلى علاها يهالياش بدي سنة لكن معلومات أما معلومات يرى خلطنا والقاتل وحكينا سنة كنتي كانت فوقيسو حقيقة ضبط على واقع كتير أنت وبعدين تمكن يمكن ومدى صوماليا كهرليا واحد بدن مرة قاركود واقع مدى سنة مقال كلام تيجي سنة أنت قال نجايا سيدنا علماء الصومالية سوق على السنة والبعض عندما الدين يتاريخ يتعير بالمدني تاريخ لنا سوق لنا ابن سينا ابن هيثم وسنة ربما سوق في السنة كان حكوا سوق ابن خلدون وعروتي عريه أقوم تبشر السكولوجيا ورنتي حفظا إيهاب نولدك حبداً كلفت كده عبوري بان سنة كان حقوق على ديجا نعرف كأنه هو يقرن سؤال رنتي ده لوين أنت بنا هذا دل بدي سكوار كسيد أما ما تصنع له دقيقين قالوا حيروا عندنا برتان وربرت بقالة إسلام كا عن بلوغ إسلامي قاعد دل كنا قصوا بدنا يا مركز مفكرين كمسلمين تمحور مريان هذا كذا قالة إسلام كا مثلت تقول واقع كلا iyo bay soo guuriyaan oo wali meeshoodii maahan baa maqaalka laftigiisa ku qaadan dhigana sekada iyo saamaynta dhaqan dhaqaale ee bulshada ku leedahay hadda gobolka u dalabana ka jira sanad walba jirta marka dib dhacdo waxa inta badan TV-da ka maqalsan beesha caalamku nala soo gargaar ama dadka dibadda jooga gargaar nala soo gaaraan marka tolo su'aashu waxa weeye sekada haddii si sax loo qaado ما كان كتانا دباتوين كتير شغال عن فقر يعني كبحنا أنا وقيت والفر أدمنستريشن كنوري وكشق ياروتي وسكاء بيتو سكاء أصل كها أو تذكر لسينا يروي وما دارك ما يصير وحيك لا تقال يا وما تقول لك كلا داراتو أو تاجر ناس فقير لهرو سكدنا أساس ويوتهاي مركب قال كان وعملوا قال لي يا دباتو دل كنا هاي ستة وما دينا هاي ستة هذا سكدة تسحب وقامنا ما هو في ذيك الطينة شقنا هلا حرمنا لجارو دباتوي كسرنا نقنا ينا الحل وعلا وما هي كنسركم كان سجنا وقيل كمذا أو أنخوق على نيجنا لكن عندك كليها قال ما
kaliyaha u badan ee ummadda Soomaaliyeed runtii badan ku jirta tolo maxaa keena biyaha wasaqda ah ayaa keeni kara xanuun kale dilaaga ay sonkorta iyo saameynta u leeyahay maxaa keena iyo sida looga hortagi karo ay dhici kartaba socod kaliya inay daawo tahay marka waa maqaal sabuna koobaya amanaya in badan baan hadlay laakiin waan soo gabagabeynaya hal laba islaam ma yahay insha Allah ugu dambeyntii maadaama sanad walba ku soo qaadano culimadeena Soomaaliyeed mid kamid ah sanadkan aan ku soo qaadanay Sheekh Abdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo runtii aan ku warayay saaxiibka Ismaan Xamuud aan ku waraysanay dalka Suudaan oo runtii uu ka hadlayo fikirka oo leeyahay ummadda Soomaaliyeed laba dhibaato haysata waa soo raridda afkaar iyo waaqo ummadka ay leedahay oo ay rabaan marka dalkii ama ummadda meesha ku nooshay inay ku fuliyaan iyo ummadda Soomaaliyeed oo rabtay inay u noolaato sidii waagi hore u noolaato taariikh hore noolaato oo inta badan waxaa arkaysaa abtirsiime awoowayaal dhintay ama la soo gaarin oo kolley ku arki doontaan Professor Abdallah Mansuur meesha loo gelin doono laakiin odayaal aan la garanahaynba meel ay ka soo jeedaan waa inta badan ummaddeena horumarkeeda u diida awoowayaal baan ku abtirsanana marka arrintaas ay runtiisa u ka hadlayay wuxuuna inta badan sabu u arkaa xalka in ummadda geeska Afrika khaasatan ummadda Soomaaliyeed kasta ay ku nooshahay si loogu helo su'aalaha ay baxnimadu iyo hab nololeedka maanta lagu nool yahay keenayso si jawaab loogu helo in saddex arrimood asaas ay runtii tahay in la isku xidho ومدة كواد وشرعنا ومدة لبعض وواقعة ومعصر للنوري ومن صدق هذا عصر قفك ولا صدق هذا لسكوح رصيد جواب صح الله إذا كوني كتاورر كفراء بدن حبة شيراننا وحكيني ولا صدق عامل كم الأيام مطن وحتى لو جبت بعد كلام كلية سي لو جبت بعده أفكارته هي واقع وملاها كلا صورة رجال laga soo rarayo carabaha laga soo rarayo wadamada kale si looga baxo loo baahan yahay mufakkiriin Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatadooda iyo xalkooda runtii raadiya waadi xalka la doonayo weey arintaasna runtii wax dad badan baa ka qayb qaadan kara oo warbaahinta dawladaha maamulada oo ka qayb qaadan karaan laakiin mufakkarkaas loo baahan yahay ama aqoonyahanka mufakkarka ah waxa looga baahan yahay horta koow inuu buuxiyo saddex shagood weey in uu xalka ka raadiyo kitaabka sunnada iyo culumta kale waa marka labaad fahamsan yahay waaqaca uu joogo xalkana uu doonayo waaqaca uu joogo taasoo laga badbaadiyo marka waaqaciyadii ummadaha kale aan ka soo rarnay in laga baxo markaasna kadibna sameeyo marka aragti ummadda Soomaaliyeed gaar u leedahay si marka dhibaatooyinkeeda looga baxo su'aasha markaas weydiinta waxa weeye tolo aqoonyahanka iyo mufakkarkaasi muxuu marka yahay xagee uu ka yimaado marka su'aashu ahayd mufakkar nimada ama qofka ruuxa fakkarka kale muxtaar baa u gelin doonaa wuxuu waa qof ruux fakkaraya aqoon leh aqoontiisana ay gaarsiisay inuu naftiisa runtii inuu xal ka raadiyo kitaabka iyo sunnada iyo culumta kale laakiin aan wax kale u kordhin karin inta uu naftiisa runtii ninka aqoonyahanka ah uu inta ku koobnaan karo laakiin qodobka labaadna fahmi kara meesha iyo waqtiga uu nool yahay qeexitaanka marka mufakkarka wuxuu ku qeexay waa qof wixii la yiri xalay aqoonyahanku ku qeexay waa qof wixii la yiri la qoray la baaray la soo bandhigay garan kara oo fahmi kara noloshiisa inta ku sixi kara intaana ummadda u gudbin kara waa qofka mufakkarka ah qofka labadaba waxa ka sareeya qofka filosofka ah adama aqoonyahanka kaliya soo koobi kara mufakkarkiina uu ummadda u gudbin karo wuxuu qofka filosofka ah وقف سب عرقتي سمين كره عرقتي ده أصلا فكر وأمسين يكون دقيق كره مركز صدق راس أيام بهان هبيل ومد لبنت مد الصومالية ملك السيد جنت هذا لقصة الصومالية ووليبا وحبر الشجر يمناهج عندي قلنا سيو بصح الواهرة وحمون القشرين لكن لا هرا قوة وإحنا ديني كره وإحنا يلي كره سي الله هرا وإن مركز سيقات حتى حبرنا إنه عن كنتي بدلنا
darsigaas kole oo faahfaahsan kafaala magazine 2016 ku arki doontaan oo sheekhu noo qaadan dhigi doono article aan dib ugu wacdiyo qadar wuxuu faahfaahinayay midka hadda maanta aan wadno caawa kan maqaalkiisaan ayaa mudan inuu dadka maamulo waxaa laga yaabaa kow qofka inuu isweydiiyo horta maxaa kelifay maqaalkan markaan qorayay safar aan waddan ku imid baan suuqa caanaha waxaan ka doontay caano hooyo waayeel oo caanaha gadaysa baa waxaan ku yidhi hooyo caanasi marka doorasho iyo waxbaa socday waxaan ku yidhi hooyo oo malaynaysaa inuu guulaysan doono waxay tiri eedo dadkan dhan waxba isma dhaamaan laakiin haddii anigay dooran lahayeen caanahan sidaa ugu miismiisaya ugu miisi lahaa xukunka waqtigii marka meeshii u dhashaa wuxuu ahaa haddii hooyadii caanaha gadaysay ilaa maxaan ku aqoonyahaankii qof walba uu dalkii iyo dadkii inuu maamulo yaa mudan inuu dadka maamulo marka baaris yaraa ku galay haddaan wax yar marka idhaahdo waxaan dib ugu eegay horta ismaamulida loo baahan yahay nacam arrinkaas yacni anarkism iyo dowlad la-aan iyo waxay tahay dee Soomaali 25 sano khibraddeeda leedahay waxaana noogu filanba xataa haddaanan hadda culuumta political science-ka waxba gelin maanta haddaan u noqono Haabiil iyo Qaabiil yacni bini aadamka sidiisaba ma kala maarmo aragtidii Ibnu Khalduun labo inuu wax qaybsado oo ku khasban yahay saddex inuu heshiin lahaa waxa uu qaybsan lahaa ma yaqaan waa khasab marka qof wax kala maamula oo awood haya inuu helo oo aragtida Ibnu Khalduun marka taasaaba horta ismaamulid looma baahna qofkii ku dooda intaas waa dardaraysaa intaasaa burburinaysaa marka horta ismaamul la'aan laba noolaan karo laakiin yaa dadka maamulayo maqaalku ku koobnaa taasaan u yara fahno saddex waxaan eegay nafta qooyinka hore oo Greek iyo filosofadii saddex ay u qaybsheen miirley ruuxi iyo hunguriley marka waxay yidhaahdeen qofka haddii uu yacni asaga laga helo saddexdaas inay wada shaqeeyaan waxaa laga yaabaa in la helo qofkii idealka ahaa qof wanaagsan ahaa oo bulshada digsan lahayd haddii uu maxaan ku idhaahdaayo laga waayo inuu noqdo saddexdaas wax ka mid a saddexdaas ku ka mid noqon waayo asagii laftiisa khalkhal galaya bulshada saa u wada samaysanna khalkhal bay gelaysaa dowladdeena ku soo tusaale qaateen anoo koobaya miyirka nafta bini aadamka saddexdaas ka koobanta yiraahdaan miyirka caqligaan leenahay ruuxiga waa wixii go'aan horta gaarayay wax wanaagsan ku fariyay xumaanta gaarayay ruuxdu waa ruuxdan deewaysaduuna kaan ruux quraanku uu leeyahay oo meel ku jirta ilaa bini aadamku san garan karin badanaana awood ambitionka inaa wax rabto inaa gaadho hadaf inaa leedahay waxyaalahaas awood ku kaxaanaysa xataa marka xanaaqayso xagga caatifada xagga wax doonka ruuxda amarta hungurileyduna waa shahawaadkii marka saddexdan haday wada shaqeeyaan oo miyirku qofka maamulo ruuxduna ay mar walba ku siiso ilaahay ka cabso xumaanta ka fogow ee ciidan ku noqoto hungurigana ay xadido qofka waxaa laga yaabaa qof nolosha miisaaman inuu noqday dheheen bulshada u soo noqdeen waxayna barbar dhigeen dowladda waa miyirleydii dheheen waa maskaxda iyo caqliga ummadda maamul lahayd ruuxu waxay dheheen waa ciidankii iyo booliiskii hungurleyda kala celin lahaa hungurleyduna waa shacabka waxay rabaan dhar waxay rabaan hoy waxay rabaan maxaan ku idhaahdaa waxbarasho waxay rabaan caafimaad marka horta bulshadii saddexdaa laga helo ayaa yani ismaamuli karta maqaalkii intaas ku saabsan yahay waqtigoo yar waa ka soconaya sanadkii kii hadda ah hesheen oo sandheere oo idiin keenay ka horreeyey waxbaa markiis weydiinay marka horta qofku suu ku fahmo miis yaqaana asaga qofka shakhsiga Soomaaliga ah haddaa marka gudaha u galo saddexda qaybood oo ay ku saabsan yahay Ibnu Khalduun waxay hal aragti u leeyahay horta caalamka saddex ugu qaybshay caalam al-arwaax oo caalamka malaa'igta ah iyo caqliga ah caalamka dareenka xayawaanaadka aan la wadaagno shanta dareena iyo caalamka nafta ah oo rabitaanka iyo shahawaadka Greegi aragti uu kala sameeyay waa isagoo filosofer islaami ah qaybaha marka ka soo tagno marka laakiin bini aadamka waxa inuu wax qaybsado isku dira maxay yihiin bas weydin karnaa classical elements ki waxyaalaha u yeereen dabka hawada biyaha haddaan afartaa u fiirsano bini aadamka dabeecaduhu uu leeyahay oo dhan afartaas ku soo qaata dabkaan soo qaadana dabka wuxuu leeyahay xamaasad waa dabeecadu wanaagsan uu leeyahay waxna waa leeyahay qof bini aadamka taqaano ama aad isku fiirso
labadaba inaad qaybo ka siidato ama mid u badataa dhici karta dabku wuxuu leeyahay xamaasad wuxuu leeyahay dhiiranaan waa aragto dee markii wax yar la shido holacan holcayo waa dhiiranaan wuxuu leeyahay hal abuur markii biraha la dhalinayo dabka laga abuuraa soo ma waa intii wanaagsaneed qof dabeecadaha leh baa arkaysaa dhinac kale wuxuu leeyahay waxbuu gubaa naceeb baa ku jira olol xanaaq baa ku jira dad dabeecadaha leh baa ayagana jira hawada haddaan fiirino naacaw bay leedahay raxmad qof raxiimaa jira soo ma haddana dhawaaqay qaataa qof xan badan baa jira soo ma oo shanqartay qaataa sidoo kale waa yani waxaa weeye farxadday leedahay yurub qabowgaa ku badan halkaan hawada fiican baa u badan dadka afrika joogada badan waa ismaayil garaynayaan waa faraxsan yihiin soo ma marka waxaa laga yaabaa qof inay hawada ku badan tahay qofna inuu dhinacada dabeecadaha hawada ee wanaagsan ku badan tahay biyaha nadiifnimaa ku jirta purity soo ma waxaa kaloo ku jira allahuma mustacaan qulqulka dhinaca kale waxbay burburiyaan daadad qof labada dabeecad bale waa dhici kartaa qof mid u badan waa dhici kartaa dhulka waa adag yahay dabeecadahan fiicneen waa qallafsan yahay qof saas oo arkaysa dhinaca kale waa mas-uuliyad kulama duliyo wuu haynayaa midda kale waa sabar badan yahay dad dhinaca lehna waa arkaysaa marka taa macnaheedu waxaa weeye haddii magaasiinka dib loogu noqdo maqaaladiisoo dhan inay isku xirxiran yihiin marka labada pointi baan rabay inaan dib idinkugu celiyo inaan faalo keer bixiyo buuggan iyo buuggii ka horreeyey magasiinkan iyo kii ka horreeyey oo fursad u helay inaan soo aqriyo oo aan ka mid ahaa kullay intii ku xidhay intuu socday muddaduu socday intaanan u gelin faaladayda waxaan jecelahay inaan maxad dheer aan u celiyo dhallinyarada fikraddan lahayd ee kana dambaysay maamulkeeda oo runtii muddo dheer u soo jarmaaday inay halkan soo gaadhaan aad baan idinka mahad celinaynaa waa run oo boora way doorteen marka soomaalida kale loo eego kullay asbaabo badan baa jira iyagaa lahaa bal waan idinkaan idiin daynay sababtaan dooran laakiin waxaan malaynayaa boora maun inay tahay meelaha soomaalida kala duwan oo dhan laga helayo waxaad arkaysaa haddaad baxdo huuno iyo aboowe iyo boowe iyo noocyadii kala duwanaayo o dhan marka waa meesha kullay kulmisan soomaalinteeda bal saas baan aan filayaa runtii haddaan xagga buugga u galo buuggu kullay waxaa in badan ka bildhaamiye noocyada uu ka kooban yahay magasiinka inta badan lagu soo qaato inamadii iga horreeyey laakiin waxaa qiimo leh in ay oo aadaan uga helay fikradda ka dambaysa magasiinka oo ah in la ismaqashiiyo soomaalida meel kastay joogtada inay helaan meelaha iska akhristaan afkaartoodana ay u wadaagaan oo ogtihiinoo iminka qurbajoogga waa baday weliba meelaha uu ka badanya waxaa ka mid ahaa scandinavianka warbixintii u dambeysay waxay ka marayeen populationka soomaalida 14 boqolkiiba inkastoo iminka badan yahay filaya sanadka marka lagu darino 20 gaarto boqolkiiba 20 halkaan naga maqan inaan afkaarteena dalka iyo kuwa dibadda waxay ismaqlaan isku gaarsiino runtii waa makanishan aad u muhiima waana sababa loo asaasay kafaala waxa muhiima inuu meelo badan naga tusayo xagga taariikhdeedii hore sida maanta maqaalka halkan ku qoran oo ka sheekeynayo soomaalida iyo luqadii dalka ka soo jeeda oo runtii filosof aad u khabiir aad u weyn oo xagga ku takhasusay uu ka warramayo fursadna ii siisay anigoo laftigayga ah dadka soomaalida ka mid ah inaan markii ugu horreysay aan barto filosofa magaciisu meesha ku qoran yahay oo ii sheegayaan Soomaaliya oo luqadaha ku takhasusay runtii inaan ismaqalnana waxa ama inaan isbarnaa suurtagal ka tahay xeelana buugga waxa kaloo aad muhiim ah oo soo qaadanaya taariikhda islaamka iyo waxay ku soo kordhiyeen arrimaha bulshada kale ugu dheeraanaya oo uu ka warramayo badbaadinta ciyaalka oo kale iyo sida loo korinayo runtii dhibaato dalkii dibadda taala iyo waxyaabaha ka dhalan doona oo buugga markaa dib u eegteen akhriyay waxa ka mid ah boqolkiiba 30 boqolkiiba 40 in gaaraysa buugga intiisa badan wuxuu ka hadlayaa badbaadinta ubadka oo runtii problem jira horumarka dhaqaalaha islaamka ayuu aad uga hadlayaa oo uu soo qaadanayo runtii sakada iyo dhaqaaluhu sida isku saameeyaan oo maanta ay taasi taagan tahayba abaarahan maanta aynu ka ordayna haddii wuxuun ay jiil lahaayeen akoono noocaas oo kale aanan lagu baxsan lahaa wax kaloo ka mid ah caafimaadka oo uu soo qaadanayo
intaasoo dhan waxa dheer cajiibka waxa ka mid ah lifaaqyo quraallada ay dhex gelinayaan oo ah cilmi baadhisyo la sameeyey inkastoo la jira cilmi baadhisyo Soomaaliya laakiin cilmi baadhisyo caalamiya oo waxay ka hadlayaan ay ku lifaaqayaan ayaa ka mid ah meelaha kalaadka ugu fiican yahay waxaa ka mid ah in aragtiyo laga helayo aqoonaysan oo ama Soomaali ha noqdo ama ajaanib ha noqdeen oo ay ka mid yihiin sheekooyinka Soomaaliga marka waxay jeclaan lahaa meelaha u baahan inaan ka xoojino oo runtii la iska arkay qurux badan tahay in xagga standardka marka la eega xitaa uu yeelan karo magasiinka marka standardada caalamka aad eegto runtii anu intaan qiimeynayay ilaa boqolkiiba 95 u buuxiyey oo kala duwanaanshihii baa laga arkayaa waxa aad ii meelahan jecelahay inaan aad wax uga sii qabno waxa ka mid ah maadaama aan dhaqankeennii inuu aad uga sii dhex muuqdo iyo waxyaabaha aan lahayn waxaad moodaa dadkeena Soomaaliyeed in niyad jabin nagu dhacay waxyaabo badan oo ku xoog badan baa jira sida maamul baan lahayn awalba maamulada in ku maahay lagu mashquulo siyaasadda in laga warramo sibay Soomaalidu isku maamuli jirtay ka hor xitaa isticmaalkii xitaa waxyaabahaas oo kale inaynu muujino wixii aan lahayn in dib loogu soo muujiyo baan aad u jeclaan oo aan meelahan ka mid gareynay waxa kaloo ka mid ah waqtiga iga dhow awadeed inaan lahaanshihii Soomaalidu waxay lahayd ka mid tahay dhaqankii suugaantii inay ka mid tahay yar dareema inay gaabsi ku tahay maqaalkan iyo maqaaladii hore sida ka muuqatay inaan dib u soo celino inay ka muuqato siyaasaddu waa nolosha siyaasaddu ma aha siyaasadda inaan imika saaqidee siyaasaddii aynu lahaan jirnay iyo siyaasadaha ummadda guulaystay inaynu kaga warramo oo maqaalku meelaha ugu xoog badnaado ayaan rajaynaya kada ugu dambeyntii waxaan kula joogaynay in intan uu ka bato maqaalku in waxyaabo badan oo waxa jira guul badan ay gaareen dadka gudaha ku nooli waddanka gudihiisa jooga hadday noqoto aqoon oo ina ogeyn dad badan oo dibadda ku jooga weli ay u taagan tahay inay xaggaas ay u haystaan wax walba in lagu hayo sidoo kale waxaa jira dad badan oo Soomaali oo halkaa ku nool oo dibadda ku nool oo iyaga laftigooda toddobar gaaray marka waxaan jecelahay waxyaabaha positive-ka la gaaray lagu xoojiyo si aad iskaga akhristo waxaan u soo istaagina waxaan soo akhriyay ka taataabto inkastoo jeclayna si daacad ah idinku warramo waxaan soo arkay dabcan majalladan kafaalo dadkii abaabulay abaal weyn bay nagu leeyihiin waxa qof loogu abaalnaqi karana waxay tahay in la yidhahdo jasaakumullahu khayran ilaahay idinkana idinka abaaliyo majallada guud ahaan waxa weeyaan waxaa ku jira information aad u fara badan macluumaad iyo cilmi qofka Soomaalinimo iyo Islaamnimoba anfacaysa waa guud ahaan haddaan gudagalno waxaan soo akhriyay yani 5 fariimood waaweyn intuu mawduuca gaarsan yahay 5 fariimood ay ku tahay barbaarinta saxsan ee ubadka gaar ahaan fariin ku socota waalidka iyo macallimiinta Soomaaliyeed yani sida saxsan ilmaha anfici kara naftiisa iyo dadkiisa loo soo saari karo mawduuca labaad wuxuu ka hadlayaa yani Soomaalida luqadoodu asal ahaan halkii ka soo jeedaa oo Sheekh Cabdi Maxamed professor weyn oo aad uga hadlayo asal ahaan Soomaalida xaggee luqadooda ka soo jeeda iyo maxaa ka jira sheegashada ay Soomaalidu sheeganayaan inay yihiin Arab ka soo jeeda qabiilkii Qurayshta mawduuca saddexaad waxa weeye uu ka hadlayo majallada fariinta saddexaad sida waxa weeye waa kuma Sheekh Cabdiraxmaan Saleymaan Bashiir Sheekh Jacayl Sheekh Eliya Jabuuti oo aad uga hadlayo wuxuu yani dabcan majalladu fariinta ay sidata sheekha waxa weeye waraysi xiisale oo sheekhu ka bixinayo bulshada yani bulshadu baahida u qabto inay baraarugaan dhalinteedu oo ay fikiraan mawduuca kalaad waxa weeye horumarinta dhaqaalaha duwalka islaamka sidee saxsan ama maxay dowladaha islaamku u baahan yihiin si financially ay u soo koraan qaybta ugu dambeysa wuxuu mawduucu ka hadlayaa caafimaad dabcan waxa weeyaan waxyaabo xanuuno badan soo qaadanayo Soomaalida gaar ahaan xanuunadaasi u saameeyeen iyo maxaa lagaga hortagi karayaa dabcan waxa weeye saan idin sheegay kafaalo waxa weeyaan waxa uu anfacayaa qofka cilmi ahaan iyo macluumaad ahaanba inuu qofku Soomaalinimo iyo Islaamnimo uu kobciyo aragtidiisa waa qaybta koobaad ee soo qaadano oo horena idinku sheegina si daacad ah idinku warramaan rabaa inkastoo waqtigu yar yahay waxaan soo arkay dabcan oo macluumaad aad u fara badan ahaa mawduuca koobaad ee barbaarinta saxsan ee ubadka majalladu marka ugu horeysa waxay soo barboosgareynaysaa su'aal ah ilmaha oo la dilo garaacista ilmaha guriga iyo goobaha waxbarashadu ma tahay barbaarinta saxsan ee ilmuhu ku hagaagi karo yani ilmihii la dilo marka uu khalad sameeyo ama meene marka uu waxweynaashaxumo ula imaado goobihii waxbarasho ama meene waxbarashadiisa hoos u dhacdo inay jawaabtu noqoto in ilmihii la garaaco ma saxba
dabcan waxa weeyaan sax maaha wuxuu adeegsanayaa tiiriyo fara badan oo xagga psychologically ilmaha maxaa khasaare kasoo gaari kara dhow ka mid a arrimaha khasaare ilmaha garaacista kasoo gaari kara soomaalidu sidii loo soo rabeeyey way dabcan walka u rabeeyaan iyaguna taasina ma haboono sababo darteedba kow ilmaha in la dilo iyadoo la rabo in la barbaariyo waxyaabaha ka iman kara waxa weeye in ilmaha naftiisii la barbaarinayo mustaqbalkiisa wax la waxyeelo oo mentally ilmihii damage lagu noqdo laba ilmuhu kalsooni darayna ku dhacdo inuu naftiisiina ku kalsoonaan waayo waalidkiisiina uu ku kalsoonaan waayo yani firix ka qaado waxa ilmaha ku dhacaya waxa weeyaan inuu ilmihii caro bato ama meena inay cabsi ka gasho inuu qalad sameeyo samaynta qaladna waa maxay waa sunnaha nolosha ila waxa weeye qolada ingiriiska tirada si aad u noqotid wise and all feras waa inaad maxay ahaatid stupid and young yani inaad mar hore yaraatid oo stupid ahaatid later on baad noqonaysaa qof garaad leh oo weyn baad noqonaysaa akharka dabcan waxa weeye markaa maqaalku aad uga soo horjeedaa in ubadka la garaaco waxa weeyaan waxaan u soo jeedinayaa rather than that in ilmaha lala fadhiisto lala niqaasho si barbaarinta saxda loogu sheego qaybta labaad uu ka hadlay waxa weeye Soomaaliga oo professorka Axmed Cabdo professor ku dhashay Soomaaliya wax ka soo bartay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee la Koole markii dambana Roma ka qaatay takhasuska xagga luqadaha dhawaaqooga wuxuu sheegayaa professorku wuxuu ka hadlayaa wax badan ka sheegayaa salahaan luqadda Soomaalidu halka ay ka soo jeedo iyo waxa weeye waxa ka jira in Soomaalidu sheegashadan ay Soomaalidu sheeganayso inay ka soo jeedo carabta dabcan luqadda Soomaalidu waxa weeye waxa ka mid tahay luqadaha afro-asiatic la isku yiraahdo gaar ahaan kushitiga bari bay ka mid tahay iyadoo yani uu sheegayo professorku in laga yaabo inay ka soo jeedo Mesopotamia dhulkii loo yaqaan dadkii degi jiray dhulkii labada wadi u dhaxeeyay luqadda Soomaalidu waxay leedahay 20 lahjadood guud ahaan 5 la isku soo koobo ay ka mid tahay maxaatiri iyo mayga waxa weeye marxaladii kala duwan ay soo martay luqadda Soomaalidu waxay soo martay ilaa 6 marxaladood 17 farta la qoraa akhirkiina ay ku soo fartii ugu dambeysay luqadda Soomaaliga ay noqotay Laatiinka waxa weeye luqadda Soomaalida marka laga hadlayo waxa kaliya khilaaf ku badan oo ku soo noqnoqda culimada xagga luqadda Soomaaliya waxa weeyaan naxwaha iyo higaada waxa uu sheegay professorku in luqadda Soomaalidu ay xiisa badan ku darisay culimada luqadaha ana sabab darteed ay kamid tahay inay erayo gaar ah leedahay sida tusaale ahaan waa luqadda yani inta luqadaha kayda annaga iyo inaga labada erayo Carabiga waxay noqotaa ana iyo nahnu Englishna waxay waa mi iyo asal Soomaalidu waxa weeyaan annaga iyo inaga qofka uu sheegay maruu xuduudin yahay iyo maruu ka maqan yahay annaga waxa kale oo ka hadlayay waxa weeye mujalladu waa kuma Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir طبعا Sheekh Cabdiraxmaan waa personal life-kiisa laga hadlayo tooro wuxuu ku dhashay dalka Itoobiya magaalada Tirnaba wuxuu ku barbaaray waxa weeye wax ka bartay Djibouti Yemen iyo Suudaan ilaa waxbarashadiisa sare masterka ku takhasusay qaanuunka iyo shariicada sheekha dabcan waxa weeye waraysigu wuxuu weydiinayaa su'aalo xiiso badan oo khusaysan noloshiisa gaarka iyo waxbarashadiisa halgankiisa waxbarasho sheekhu wuxuu ku hadlayaa baraaruga bulsho iyo fikirka waxaa ka mid ahaa sheekh waxaaba uu sheegay wuxuu leeyahay waxaan u baahannahay inaynu barbaarino jiil waxna qaadan kara waxna diidi kara taas waxay ka dhigan tahay inaynu yeelano dhalinyaro wixii kastoo loo sheegana wada qaadan wax kastoo laga reebanaan ka wada taasina ay barbilow u tahay kobaca baraaruga bulsho sheekhu wuxuu aad uga hadlayaa xagga fikirka yani waxaa laga wareysanayay isaga iyo culimo fara badan oo xasan albana uu ka mid yahay maxamed cabdo uu ka mid yahay yani waxay muddadii dambe ay culimada islaamka ku howlanaayeen fikriga islaamiga sheekhu waxa uu sheegay in la isku soo ururiyay 3 shay bay kala hadheen marka fikirka islaamka laga hadlayo ama qofka muslimka koo ay tahay sharciga yani shariicada diinta in laga tegin laba in la eego waxa weeye xilliga la nool yahay kolba saddexna in la eego qofkan yani qofnimada qofkan xilliga uu nool yahay sheekhu waxa uu sheegayaa 3 shay inuu kala saaray oo horeyna laynoogu soo sheegay saddexda kala ah mufakir islaami waa kuma definition gaar u siinaya aqoonyahan islaamina waa kuma philosophy islaamina waa kuma mufakir islaami sheekhu waxa uu sheegay waxa weeye waa qof aqoontu uu leeyahay ay karti siinayso inuu qofkaasi dib ugu noqdo sunnadii iyo kitaabkii deetana uu kala soo bixi karo xal uu baahay taas waa mufakir islaami aqoonyahanka islaamiga waxa weeye wuxuu sheekhu inoo sheegay inuu qofka wixii la qoray la baaray iyo daraasada lagu sameeyay culumta kala duwan inta uu qaato noloshiisa kaga anfici kara deetana dadkuna wax ugu tari kara
sheekhu wuxuu sheegayaa in mufakir kasta ayba aqoonyahan uu noqon karaa laakiin aqoonyahan kasta ay mufakir ma noqon karo aqoonyahan kasta ayba mufakir ma aha markooda uu noqon karaaye filosofiga islaamiguna waxa weeye waa qofka aragti la iman kara aragtidaasoo ku salaysan waxa uu isugu aaminsan yahay sheekhu wuxuu inoo sheegay bulshada islaamka marka laga hadlay xagga fikirka iyo wacyigelinta soomaalida islaamka guud ahaan laba shay baa haysata kow soo raridda inay iska soo rartaan soo guuristaan wax kala fikir kasta qalbiga wax kasta ka soo rarano carabta diinta xagga carabta ay naga soo gashay laakiin dhaqan kastoo caraba inaynu iska soo rarano iyo laba inaynu ku adagnahay wixii hore isbedelku inuu inagu adagyahay noolaanshaha taariikh hore ويدك الشيخ اللي انت كجا بحنا غير فرق بدل مضبع كهلا يا وحوي قلب كفراد فرنت أفراد وسيدي وحوي دولة الدول الإسلام كسي الله ورمى الكرام ناشيالي طبعا وحوي دولة الإسلام إلا هريب وشرتين يعني دولة ويلا تدقالة أميني دولة الإسلام كوشرتو وعي يعني دقالة كل الله هذا حلي أبو بكر الصديق مركي ربي سكدة ديدا وكيل على منك سكدة ديدا دقال بنا قد حياة عمر بن الخطاب وكيل بيت المال كسمية دول لو قري فاميلي دولة المسلمين تا وحي على كفالة قاعد كرا نلشوا ده فك حتى كل يا ابن عمرك عمر بن الخطاب هم حدنا قيل وحمسين يقولي موحين يعني دسين إن هم أبانا قسان وحيل عثمان بن عفان حتى حلقي سوى كعيدا كي لو تقريه مشاركة تذكي يعني هتدا الهان اللي جاي دول بدن يشان سين تقول نقول فقرات سين يقول نقول خلط وحوي يعني حلقي خلفادي عباسيين هم كل جوجي هارون ورشيد أيا علماء حلقة جوتي أو يوسف يعقوب كم عرصدي أرضي كم هاي حلقة علماء جوتي نوقرو كتاب أما بوك هلا يدغالها دولة الإسلام بسيولة وقبلها وحنا قريب بوك لو يقالي The Book of Taxation markii dambe ku 830 ay waxay la turjumay Faransiis Ingiriis iyo Ruush loo turjumay way ka faa'iideysteen dawladaha kale way fariinta ugu dambeysay buugooda waxa weeye majalladan ay wada waxa weeye waxay ka hadlaysaa xagga caafimaadka xanuuno fara badan oo kansarka ka mid yahay xanuunaha keliyada ku dhaca iyo xanuunka macaanka baas ee lagu hortagi karaa qofka ma inay qabaan waxa uu baahan yahay gaar ahaan Soomaalida ay xog uga hadlaysay guud ahaan intaas uu xambaarsan yahay waxaan ka tagay waa nafteedii shay aad ugu faraxsanahay in gobolka uu markii ugu horeysay ka hirgalo oo ay dhiirigeliso qoraalka saxaafadda aad baan soo dhaweynaya waxaan qaadanay haddaan boorga news nahay adigoo ka wakiila maxamed umar karay shan xabo aad baan mahadsantahay maadaama ay garteen inay markii ugu horeysay Soomaaliya ay ku daafuraan magaalooyinkan ay ku daafuraan magaalada Boorame aad baan iyagana leeyahay waxaad asiibteen oo waad garateen inaad magaaladii aqoonta magaaladii waxbarashada magaaladii ilbaxnimada inaad ku daafurteen aad baad u asiibteen waanan idinka mahadcelinayna aad baan idinka mahadcelinayna waxaan kaloo ku soo dhaweynayaa dhalinyarada shanta jeer timid ee maanta markii shanaad ay tahay waxaan leeyahay haddaanu nahay madax dhaqmeedkii gobollada awdal iyo sanad iyo Somalilandba waxaan ku soo dhaweynaynaa dhalinyarada aad u furfuran fikirka fiican wada ee magaalooyinka maanta aan qaadanay oo markii shanaada ee uu soo baxo inkastoo aanay noo suurto gelin in magaalooyinkii hore ay la soo gaadhaan taariikhda waxsan Sambere iyo Cabdiraxmaan Tuure iyo nabay soo gaadhay annagu maanta maqlanaa waxaan yeeli doonaa haddii aan leedahay waxaan ku soo kordhin doonaa fikir baanu la wadaagi doonaa fikir baan anagu ku soo darsanaynaa maqaalaan ku qori doonaa haddii aan la idhaahdo aad baan soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynayaa dhallinyaradii halkan ka hadlaysay ee run ahaantii soo akhriday ee ka faalloonaysay gabadhii iyo wiilkiiba aad baan iyagana ugu mahadnaqanaa waxaan leenahay
aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inaad maanta nagu marti qaadaan daahfurka magaalooyinka Kafaalo magazine aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan sheegaya dee maadaama meesha ka soo qaybgalay waa in wixii jiraba la sheegaa halkan waxaa laynooga tiriyey aqoonyahanna fara badan culimaa laga sheegay oo wax ka qoray fikir ku soo biiriyey oo magasinka wax ku qoray waxaan yar dareemanay maadaama aad boorama ku bilowdeen oo door bideen inay tahay hoygii aqoonta dee waxaan islahay ragga aboorama u dhashay ama gobolkan ee aqoon-yahanada ee culimaadiinka cid walba leh waxay ka soo qaadan doonaa fikir iyo maaragtay laqdaday ka soo qaadan doonaa laakiin kuma jirin cidna kuma maqli cidna kama maqli profesoradii baa jira culimaadiin baa jira aqoon-yahana kala fara badan baa jira runtii maan arkin waxaan leeyahay diyaar baan idin nahay fikirka iyo qoraalada iyo rag badan oo fara badan oo gobolka tirsan oo buuran Soomaaliya ka qoran Soomaaliya history bay qoreen waxyaabo fara badan bay qoreen profesorada garanaysin dee waxaan leeyahay raggaana wax kaga darsada qorshaha ku soo dara culimada ku soo dara maadaama markii horeba gobolka soo asliibteen magaalada Boorama aad u qaadateen inaad ka bilowdin aqoonyahankayga wax kaga soo dara waxaa kaloo tala waxaan kusoo jeedinayaa aad iyo aad bay horta u fiican yihiin oo waxay ka hadleen maqaalo fara badan bay ka hadleen oo nolosha ah barbaarinta ah waxaan isleeyahay ka dhaqan ahaan nagan hadlayo waxaan isleeyahay waxa ka maqan meesha oo aan dareemay inuu ka maqan yahay dhaqankii baa ka maqan dhaqankii waayo qurbaha had iyo jeer waa in lagu dhiirigeliyaa sidii aan dhaqankii looga tegin dhaqankii Soomaalida sidaan looga tegin haddaan annagu madax galbeedkinahay waxaanu ilaalinaa oon hor taagannahay dhaqankii Soomaalida inaan Soomaalidu dhaqan ka tegin maadaama qurba la tegina way adag tahay way fududahay sida dhaqanka looga tegin marka waxaan odhan lahaa maqaaladii dhaqanka ka hadlayay ee madax dhaqmeed bay ka hadlayeen salaadiinta boqorrada in lagu darsado iyadana qorsan weli wax balan qaadaya maqaalka ugu horeeyana inaan anagu soo darso anaa isu soo diraya wax laga soo xiriiri doonaa fure markaa guud ahaan aad iyo aad baan idin soo dhawaynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad maanta magaaladii Boorame aad u qaadateen inaad Soomaaliya oo dhan ku daafurtiin magaalooyinkan aad qorteen ee Kafaalo kulley waa madan aqooneed aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhalinyartu maaragtay inaga soo doortay gobolladii Soomaaliya ee weliba sheegay inay 5 jeer waa la qabaa sidaa hore ee suldaanka iyo ragga kaleba ugu mahadnaqeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa ta kale waxa weeyaan suldaanku wuxuu yidhi war dhaqankanaa ka tegina anigu mahmaayar baan maaragtay ayaan inagu darayaa بعدما تطلقنا نهاي waxaa la yidhi nin ingiriis oo sayra xukumi jiray qarnigii naga dhamaaday madaxiis iyo ilaa la yidhi lix cishaan ini macsuumayaa daraarta jimcaha iyo duceeyuu yidhaahday lixdii maalmood buu macsuumay maalintii khamiistii baa la yidhi jimcihii waa berriye maxaan kugu ducaynaa war malaa uu muslimayaa baa la yidhi wuxuu yidhi cuuda iigu ducaynin oo lacagta ilan ii taala magaalooyin bay dhisasaa carruurna iigu ducaynin oo saddexdaa un baan korinayaa islaantaba waan turqay caafimaadna iigu ducaynina weligayba madaxuyma wareerini jannana iigu ducaynin oo diintiinaa qabta ciddaan iyada haysanin inay jannada gelayn cimrina iigu ducaynina buu yidhaahday oo intaan sii socsocdeena kala daadan inaad dhintaan doorayaan maxaa loogu duceeyaa baa la yidhi waa la garan waayo dee wax loogu duceeyo wuxuu yidhi madaxweyne jaakira oo madax adag
gooriya iyo maaragtaa ummadiisa mid loo qoon inaanan ka hoos shaqayn ama aanan maaragtaa meel uu xukumo aanan hoos joogin intaanu igu duceeyo yidhaan waxa weeyaan mawduucan maanta dee ma khusaysee bacdamaa dhaqanan nahay in mahmaha wuxuun la iska xusuusiyo doorka dambana waxaan ballan qaadanaa inaan wax badan ku soo darsan doono barnaamijka. Assalaamu calaykum.